Thank you very much, Mr. President. mahadsanid mudane madaxweyne iyo xubnaha kale ee sharafta leh ee baarlamaanka Yurub iyo martida kale ee madasha ku suganiba sharaf ayay ii tahay in aan mar kale imaado xarunta baarlamaanka Yurub. In the European Parliament once again. And once again I bring you greetings from the people of Somaliland. waxaan sidoo kale mar labaad salaan idinka sidaa dadka reer Somaliland inta aanan hadal jeedintayda bilaabin waxa aan jeclaan lahaa in aan waxoogaa idinka taabto taariikhda dalkayga Somaliland maadaama oo dadka qaarkood ay waxoogaa ku jaha wareeri karaan wadamada kale ee magacoodu ka bilaabma Soomaali ama Soomaalinimada wadaaga. My country, former British Somaliland Protectorate, aniga dalkaygu waa maxmiyadii hore ee Ingiriiska ee Somaliland waxaana la sameeyay sanadkii 1884 and it was granted full independence and waxaana uu dal xor ah noqday oo boqoradii geeriyootay ee boqortooyada Ingiriisku ay toos ugu dhawaaqday dalnimadiisa 26 bishii June sanadkii 1960 xilligaas waxa ay Somaliland noqotay dal ka mid ah 12 dal ee ugu horeeyay ee qaatay xornimada Afrika gaar ahaan dalkii ugu horxoroobay Soomaali. Because as you all know, waayo sida aad wada ogtihiin waxa jiray dal Faransiisku haystay oo Soomaaliyeed Soomaaliya oo Talyaanigu haystay qayb Soomaali ah oo Kenya ku noolayd iyo qaybtii kale ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo Ingiriisku ku wareejiyay Itoobiya. magaca maxmiyaddu waxa uu nasiiyay sumad gaar ah oo xornimo taas oo ah in aan Somaliland weligeed toos loo gumaysan waxaanaanu haysanay heshiis ilaalineed oo na dhexmaray boqortooyada Ingiriiska. heshiiskaas oo dadka iyaga awood u siiyay in ay dagaaladii koowaad iyo labaad ee dunida ka garab dagaalamaan dalalkii kale ee xulafada ahaa. markii ay Somaliland xornimada qaadatay 26 June 1960 waxaanu noqonay dalkii 12 ee Afrikaan ah ee xorooba iyadoo ay jireen 34 dal oo Afrikaan ah oo kale oo ah kuwa hadda kursiga midowga Afrika fadhiya kuwaas oo xilligaas Somaliland gobonimada qaadatay iyagoo wali ku sii hoos jiray xukunka gumaystaha. 34 kaasna waxa kamid ahaa Soomaalidii Talyaanigu gumaysanayay. Therefore, Somaliland iyo Soomaaliya markii ay midoobeen 1 July 1960 waxa uu ahaa midow dhexmaray laba dal oo kala duwan oo xor ah. ma ay ahayn dal kala qabsaday ee waxa uu ahaa heshiis iskeed ay Somaliland kula midowday Soomaaliya iyadoo oo waliba iyadu ah mid ahmiyada sare leh maxaa yeelay Somaliland waxa ay xornimada ka hor qaadatay Soomaaliya toddobaad ka hor. Fortunately, nasiib wanaag midowyada qaar waa ay shaqeeyeen sidoo kale nasiib darro qaarkoodna ma ay shaqeyn. dalalka midoobay qaarkood waxa ay ka dhaxleen korriin iyo horumar halka kuwa kalena aanay midowga mahadinin oo ay haddana dib u kala laabteen. dalalkaas inta ay midoobeen haddana dib waxooda ula kala noqdeen waxa ka mid ahaa Senegal iyo Gambia. waxay ahaayeen laba dal oo madax bannaan oo midoobay balse 3 sano kadib go'aansaday inay u wanaagsan tahay in ay kala baxaan oo noqdaan laba dal oo saaxiib ah jaarna ah halkii ay hal dal sii ahaan lahaayeen iyaga oo dhib isku dareemaya. Somaliland iyo Soomaaliya waxa ay midowgii ka dhaxleen qalafsanaan iyo waxyaabo laga qoomameeyay. Our Somali language was waxa kala duwanaa af Soomaaliga iyaga waxa kala duwanaa dhaqanka iyaga waxa kala duwanaa caadooyinka iyaga. Colonial gumaystayaashana kala xukumayay ayaa xataa kala duwanaa. Our system of administration was different. nidaamyada maamul ayaa kala duwanaa mana oranayo dhinacba dhinaca kale ka wanaagsanaa laakiin waanu kala duwanay. kala duwanaanshiyahaas oo aan saamixin inaanu sii wada jaan qaadno. And then when our people voiced dabadeedna markii dadka iyagu go'aansadeen in ay muujiyaan rabitaankooda ah in ay halkii hore ku noqdaan oo ay midowga ka baxaan lagu noqdo taariikhdii dibna loo eego wixii lagu midoobay waxa lagula kacay falal arxan darro ah. We entered into a 10-year civil war. waxaanu galnay 10 sano oo dagaal sokeeya 1982 ilaa 1991 dunuubtaas iyo falalkaas waxshinimada ahna Soomaali ayaa Soomaali kale ka gashay. waxay ahaayeen dad isku diin ah isirkana wadaaga
markii ay Soomaaliya diiday in ay dhageysato mustaqbalka dadka Somaliland dhaqdhaqaaqyo ay riixayaan rabitaanka go'aansutaaga ayaa la xasuuqay la duqeeyay la toogtay xabaalado dareedii lagu guray waxaa lala dhacay oo lagu duqeeyay diyaarado miigag ah taangiyo military dad shacaba waanu ka go'nay Soomaaliya maxaa yeelay xasuuqaas ayay u geysteen dadkoodii Soomaaliya waxa ay dadka iyaga ka gashay dambiyo dagaal oo bani aadamnimada ka dhana crimes against humanity they flattened schools waxa ay dhulka la sameeyeen dugsiyadii waxa ay dhulka la sameeyeen guryihii waxa ay dhulka la sameeyeen cisbitaaladii oo bukaankii jiifo waxa ay xabaalaha ku dareen meydadka ubadkii dugsiyada dhiganayay boqolaal Somalilanders ah ayaa la xasuuqay halka malaayiinna ay u qaxeen dalkii jaarka ahaa ee Ethiopia kaasoo noqday xilligaas meeshii qaxoontigii ugu badnaa qaabishay sida harta sheekha oo laga yaabo inaad wada maqasheen dabayaaqadii 80-aadkii iyo bilowgii 90-aadkii kuwa kale oo badan waxa ay tigeen Yemen iyo Djibouti qaar badanna waxa ay xeebaha ka galeen dalalka Yurub iyo waqooyiga Amerika meelo kale oo badan iyo goob kasta oo ay ku helayaan badbaado ladies and gentlemen mudanayaal iyo marweyn waxa ay qaramada midoobay arkeen 100 xabaalwadareed oo Somaliland laga helay qaar badan oo kamid ah waxa ay sidii ugu dhegsanayeen carruurtoodii kuwaas oo ahaa rayd aan cabsi military cidna ku ahayn ilmo yar oo 5 jir ah ama 3 jir meedan ah sidee ayaa uu khatar ugu yahay amniga waan fahmi waayay anigu inkasta oo ay xabaalwadareedyadaas aqoonsadeen khubarada qaramada midoobay haddana hay'adaha xuquuqda aadamuhu waxba kama ay qaban xasuuqyadaas iyo arrimahaas human rights organizations have done nothing waxaan jecelahay in aan idin la wadaago dukumentigii ay daabaceen Mareykanka iyo hay'adaha Human Rights Watch ee ciwaankiisu ahaa dawlad dadkeeda la dagaalantay idinka oo xitaa toos u heli kara waxaan idinka codsanayaa inaad akhridaan but where are we today in Somaliland haddaba halkee ayaanu joognaa maanta haddii aanu nahay Somaliland markii aanu iska saaray askartii Siyaad Barre ama ciidamadii Soomaaliya Somaliland waxa ay xiratay xuduudaheedii Ingiriisku kaga tagay waxa aanu bilownay dib u dhiska dalkayaga we then embarked on an energetic annaga oo adeegsanayna khayraadkayaga maxaa yeelay Somaliland laba aqoonsana waxa aanu diidnay deeq waxa aanu diidnay caawimo annaga ayaana isku tashanay laakiin dib u dhiska ka hor mudanayaal iyo marweyn waxa aanu adkaynay amniga iyo deganaanshiyaha jabhadii awoodda badneed ee jibisay ciidamada Siyaad Barre ayaanu hubka ka dhignay si loo taabageliyo qaab dhismeed dawladnimo si taas loo gaadhana waxaanu dhisnay dastuur kaas oo ay 95% dadka iyagu cod ku meelmariyeen mudanayaal iyo marweyn waxa faan noo ah in ay hadda Somaliland tahay nabad muddo 32 sano ah wararka aad ka maqashaan xeebaha Soomaalida oo dhamina kama yimaadaan Somaliland waxaanu ku guuleysanay in aanu qabanno doorashooyin qaar madaxweynenimo kuwa baarlamaan kuwa dawlado hoose kuwaas oo nin kasta ama gabadh kasta oo 18 jir iyo ka weyniba uu xaq u leeyahay inuu codeeyo waxa aanu kaga shaqaysiinay khayraadkayaga waxa aanu difaacnay dalkayaga waxa aanu tababarnay kaga shaqaysiinay ciidamada booliis waxa aanu leenahay lacag noo gaar ah iyo dalku gal noo khaas ah waxaanu ku tashanay nafahayaga si aanu dalka dib ugu dhisno waxaanu samaynay maxkamado degmo iyo kuwa gobol waxaanu samaysanay dawlad shaqaynaysa waxaanu dadkayaga siinaa adeegyo bulsho kuwa caafimaad iyo kuwa waxbarasho waxaanu samaysanay dal xasiloon oo gabadha aniga oo kale ah imika anigu waxaan ahay 85 sano jir gaarigayga ayaana ku dhex kaxaystaa wadooyinka magaalada Hargeysa iyo wadooyinka u dhaxeeya magaalooyinkaba aniga oo aan u baahnayn ilaalo iyo cid difaacdo toona maxaa yeelay waxa aan ku noolahay Somaliland waa meel nabadgelyo buuxda leh oo aan mid kasta oo idinka kamid ah aan ku marti qaadi karo berri oo aan wadooyinka ku soo wareejin karo sida ay sameeyaan ajnabi badan oo Somaliland ku nooliba that is recognized dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya oo ay beesha caalamku aqoonsan tahay waxa ay ku tiirsan yihiin deeqa caalami ah waxa kale oo ay ku tiirsan yihiin xoogagga nabad ilaalinta ee caalamiga ah I'm sure that anyone who googles Somaliland
waxaan hubaa in qof kasta oo Google gareeya ama internetka ka baara uu arkayo sawirrada magaalooyinka quruxda badan ee soo jiidanaya indhaha dalxiisayaasha. Waxa ay dalxiisayaal nooga yimaadaan bariga fog. Waxa dhawaan nala joogay dalxiisayaal ka yimid Japan iyo meel kasta oo dunida ka mid ah. Waxaanu sidoo kale soo jiidanay shaqaale ajaaniba kuwaas oo aad u yimi Somaliland si ay shaqo uga helaan. boqolaal kun oo dadka iyagii qurba jooga ahaa ayaa dalka dib ugu soo laabtay. When by contrast Somalia has been meesha dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya ay iyagu maalin walba dibadda u diraan mawjado qaxoonti ah. Somaliland waxa ay haysataa bulsho nabadda hormuud u ah una hoggaansan cadaaladda iyo ku dhaqanka sharciga. Diplomatic presence in Somaliland. Diblomaasiyadda ka jirta Somaliland. Siyaasad ahaan nalama aqoonsana. inkasta oo aan dal kaliya siyaasad ahaan noo ictiraafsanayn waxaanu haddana martigelinaa hay-ado badan oo qaramada midoobay ah. qaramada midoobay lafteeda ayaaba xafiis ku leh Somaliland. ururada caalamiga ah ee dawliga ahayn ayaa iyana xafiisyo ku leh Somaliland. waxa kale oo sii kordhaya dalalka Somaliland ku yeelanaya xafiisyo wakiil iyo kuwa ganacsi oo Somaliland nagula nool. The United Kingdom, sida Taiwan, boqortooyada Ingiriiska, Denmark, Ethiopia, Kenya, isutaga Imaaraadka Carabta, Djibouti iyo sidoo kale Mareykanka oo dhawaan ay sanadkiisu ansixiyeen qaraar Somaliland iyo Mareykanka wada shaqayntooda ah. imikana uu berberan nagula sugan yahay. waana arrin Somaliland siinaysa xuquuq aqoonsi iyo mid ku xidhan muhiimadda juqraafi ee ay leedahay. waa aqoonsi dhawaan dhaqso u rumoobi doona. dhaqaalaha iyagu waa mid kobcaya isla markaana soo jiitay maalgashadayaal badan oo caalami ah oo bari iyo galbeedba ka yimi kuwaas oo ku qanacsan in ay ganacsi nala wadaagaan. waxaana tusaale fiican u ah maalgashiga DP World iyo Mareykanka kuwaas oo adduun gaaraya $500 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ku bixiyay in dekada berberi noqoto marinbadeed caalami ah oo xudun ah. taas ayaa cadeynaysa in Somaliland nabadgelyo ka jirto. There is stability in Somaliland. Nobody invests qofna $500 bilyan ma u geliyeen dal uu dareemayo in aan hantidiisu ku badbaadin. Britain waxa ay dhisaysaa jidka corridorka ee Berbera iyo Ethiopia u dhaxeeya. kuwa kalena waxa ay maal gashanayaan waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin warshadaha wax soo saarka beeraha iyo kalluunka iyo dabcan dhismaha. dhawaan waxaa baaritaano lagu xaqiijiyey in uu shidaal badani ku jiro Somaliland taas oo ugu yaraan 3 meelood oo badda iyo dhulkaba ah laga helay. Somaliland has a coastline of 850 kilometers long. Somaliland waxa ay leedahay xeeb dherer ugu yaraan 850 kilomitir. taas oo burcadbadeeda ka fayow istiraatiiji ahaan waxa aanu ku naalnaa afka badda cas halkaas oo ay 12% maraakiibta dunidu ka gudbaan. We keep those waters free of terrorists. biyahaas waxa aanu ka jiray argagixisada iyada oo aanan Somaliland oo kaliya ilaalin ee aanu sidoo kale sugnay amniga maraakiibta dunida ee halkaas maraya. waxa ay biyaha iyagu sidoo kale qani ku yihiin kheyraadka badda ee dabiiciga ah. We invite organizations who waxaanu martigelinay ururo iyo hay'ado aan deegaanka iyo arrimaha badda ka wada shaqeyno kuwaas oo aanu si wada jir ah u wada ilaalino badqabka biyaha. Somaliland waxa ay sidoo kale leedahay kheyraad macdan ah. waxaanu leenahay dahab, diamond iyo luul. maanta fargalkaygii luulka ahaa maan soo qaadan oo tareen baan ku imi meesha. mararkaasoo kale ma jeclin inaan xidho. waxa kale oo aanu leenahay kayd weyn oo kheyraadka macdanta gypsumta loo yaqaano ah oo aanu nahay meesha labaad ee adduunka ugu tayada badan gypsumka marka laga reebo Canada oo ah ta koowaad oo aanu rumaysanahay in ay nagaga horeyso iyada oo kaliya ah dunida. waxaanu sugaynaa maalgashadayaal naga caawiya farsamaynta macdantaas si looga sameeyo sibidh iyo waxyaabo kaleba. dhanka xuduudaha tan iyo markii aanu xornimada qaadanay 26 Juun 1960 Somaliland waxay noqotay dal madax bannaan oo nabad ah. waxaanaanu tixgelinaa xuduudahaas oo jiray
tan iyo xornimadeedii aanu ka qaadanay boqortooyada Ingiriiska xuduudihii xilligaas ayaanaanu ku noolahay hadda Somaliland waxa ay ku far adeegtay nabadgelyadeeda iyo xasiloonida gobolka waxa aanu u taaganahay in aan lagu xadgudbin isla markaana aanay burburin xuduudaha Afrika mudanayaal iyo marwooyin ka noqoshada midowga Soomaaliya aanu kaga baxnay nagama dhigayo dalkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee iskii ula midooba dal kale isla markaana dib uga laabta haddana midowgaas Egypt and Syria, Senegal and Gambia, Masar iyo Suuriya, Senegal iyo Gambia, Ghana iyo Mali dhammaantood sidaas si la mid ah ayaa ay sameeyeen for doing that as Somaliland has been cidna kuma ay ciqaabin in ay sidaas sameeyaan sida Somaliland loogu adkeynayo 32 sano iyada oo samaysay isla waxa ay dalalkaasi sameeyeen mudanayaal iyo marweyn mustaqbalka Somaliland waa mid ifaya waana sida leyd ka ifaya dhinaca madow ee dayaxa oo kale inkasta oo ay nabadda iyo xasiloonida khatar ku yihiin argagixisadu al-shabaabna ay naga soo weerartay dhanka Soomaaliya toddobaadyadii la soo dhaafay gaar ahaan deegaanka Laascaanood haddana waxa Somaliland caawinaysa taariikhdeeda iyo khibradeeda nabadgelyo ee 30 sano ay xidhiidhka wanaagsan kula lahayd wadamada jaarka ganacsiga iyo dhaqaalaha koraya ayaa sidoo kale ah waxa ay siyaasadda dibadda ku dhisan tahay taasoo aanu kula dhaqano dimuqraadiyad xasilooni iyo barwaaqo Afrika oo dhan waxaanu aaminsanahay in diinta aanu haysano ee islaamka sunniga ah aanay noo ogolayn falalka argagixisada ah iyo fikradaha qaldan toona dastuurka ayaana siinaya xorriyadda fikirka iskarabsiga iyo waxbarashada oo ay u sinaadaan ragga iyo dumarku iyada oo ay aniga ardayda jaamacaddeeda adna ay 75% haween yihiin dadkayga reer Somaliland waxa ay xaq u leeyihiin in ay waxaas oo dhammi xaq u siinayaan in la maqlo in la eego iyo in la aqoonsado oo ay xubnaha beesha caalamka qayb ka noqdaan maxaa yeelay Somaliland weligeed qayb kama ay noqon mushkiladaha Afrika maadaama oo ay Somaliland leedahay qaangaadhnimo siyaasadeed Afrikana ay rabto in nabad loo helo dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya waxa ay Somaliland doonaysaa in ay dunida ka mid noqoto si ay uga mid noqoto dalalka xalka u raadiya dhibaatooyinka Afrika mudanayaal iyo marwooyin Somaliland waa u diyaar wayna rajaynaysaa awood baanay u leedahay in ay qaado mas'uuliyaddaas muddo dheer ayaa Somaliland si cadaalad darro ah loogu ciqaabayay oo dhakada looga saarayay dambiyo ay cid kale leedahay sababo aanan garanayn waxaana awoodii la siiyay oo loo ogolaaday in ay nimatasho Soomaaliyada dhibaatadayada sababtay ee dalkayaga burburisay iyadoo aan muddo dheer ka hor ka go'nay oo aanu kala soo noqonay go'nistaagayagii waxaanu la yaabanahay meel ay dunida ka dhacday in xarigii loo dhibo dhibgeystaha oo la yiraahdo metal dhibanaha Soomaaliya oo sababtay xasuuqa ay boqolaalka kun ee dadka ah naga dhinteen ayaana matalaysa bal arintaas ka fikira waa in codkayga la dhageystaa kiiskayagana maalintiisa la geeyaa maxkamadda cadaaladana laga taliyaa maxaa yeelay ma jirto sabab aanu dib ugula midowno Soomaaliyada qasan ee qabqablayaasha dagaalka argagixisada iyo burcadbadeeda iyo al-shabaabtu ay ragaadiyeen 30 sano ugu dambeyn mudanayaal iyo marweyn sidii aanu sameeynay 32 sano waxa ay Somaliland imikana rabtaa in ay sii wado saaxiibtinimada iyo jaarnimada Soomaaliya si loo bilaabo wada hadallo dhab ah oo lagu helo xal nabadeed oo kala duwanaanshiyaha iyaga ah sidaas darteed dadkayagu waxa ay rabaan in labada dhan ee xuduudaba nabadgelyo loogu noolaado mudanayaal iyo marweyn maadaama oo aanu nabad ku caanamaalay waxa aanu dadaal gelin karnaa si xal loogu helo dhibaatooyinka aanu ka simanahay ee ay sababaan abaaraha cunno yarida iyo nafaqa darrada dadka khayraadka iyaguna waa uu ku filan yahay ka hortagga iyo la dagaalanka xanuunada dadka laaya gaar ahaan dumarka iyo carruurta ugu dambeynna waxaanu wax bari karnaa dhallinyaradayada annaga oo shaqooyin u abuuri karnaa ay kaga maarmaan in ay Yurub iyo meelaha kale ee dunida u yaacaan oo ay biyaha badda ku dhamaadaan ama ku dhintaan xabsiyada adduunka mudanayaal iyo marwooyin waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa in nabad waarta ay ku noolaadaan dhammaan dadka geeska Afrika waxaan golaha sharafta leh ee baarlamaanka Yurub uga mahad celinayaa in ay nagu marti qaadeen shirkan waqtiga aad isiiseen iyo soo dhaweyntiinana waad ku mahadsantihiin and for your welcome. Thank you.